السلام عليكم. عليكم السلام. Gabadhu saaxiib qaali waxaa si leef ah ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee Rabadaanta. Markaa 3 su'aalood baan ku weydiinayaa. Haddii aad garan weydo aad isku daydana si wanaagsan. Markaa diyaar miyaad u tahay inaan ku weydiiyo sax? Yeah, way weydiin kartaa. Way aad u mahadsan tahay. Su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sirhayihii ama xogahayihii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Haddaad isku daydana si wanaagsan. Abu Bakr. Yeah. Abu Bakr. May Abu Bakr may Siddiq. How many times are 3 times or 1 saddex time? jaanis wey. Hal jaanis waad garan weydo kow. Umar Abu Khattab. May isku daygii jaaniskii labaad waad garan weyday. isku daygii jaaniskii labaad waad garan على weyday. أبي Yeah. عائشة wait عائشة. Maya caasha ma. Okay. Waayahay oo ku faa'iideeyaa oo ku sheega Soomaa. وإيش هي؟ Waayahay sirhayihii ama xogayihii Nabiga waxaa la oran jiray Xudayfa bin Yamaan. Okay, وما سنتي Waay تاني. adiga mudan. Su'aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa asxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badr. ما قرنا يا برو. Waayahay waan ku sheegaa miyaan ku faa'iideeyaa. سؤال الدين أيوة ديني سؤال Ha warabada كو قرآن يقري قرآن. Rabadaan waa su'aalaha diiniga lagu weydiiyo waa قرآن wanaagsan. رمضان ده كتر سنتي بقدي. Waayo isku daygu nooc maaha. ما أوكي نعم. Marka ma ku faa'iideeyaa marka. يفايدة. Waayahay asxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badr waxaa la oran jiray Abu Ubayda Caamir bin Jaraax. أوكي أبو عبيدة بن عامر. Abu Ubayda Caamir bin Jaraax. Waayahay su'aasha saddexaad ee ugu dambeysay aan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa magaca Abu Hurayra magaciisa caadiga ah. Asxaabiga Abu Hurayra magaciisa caadiga ah sheeg. Ma isku dayaysaa mise waan ku faa'iideeyaa waan ku sheegaa. يفايدة Waayahay هذا ما سن. waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan bin Sakhr al-Dawsi. أوكي عبد الرحمن بن الشرق. Waka aad baad mahadsantahay saaxiib qaali sida wanaagsan aad su'aalaha iskugu dayday. عايش Aad iyo aad baad mahadsantahay. Qofka xiga ayaynu gudbinayaa saaxiib aad baad mahadsantahay. Assalaamu calaykum. يو بروسكي اوكي عليك السلام صاحب Soo dhow Ramadaan mubaarak saaxiib alxamdulillah waan fiicanahay. رمضان مبارك Waxaad si leef ah ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta. Markaa 3 su'aalood baan ku weydiinayaa. 3daas su'aalood haddaad garato waa si wanaagsan haddaad isku daydana waa si wanaagsan. Markaa 3daas su'aalood saaxiibaan miyaan ku weydiiyaa waad ka jawaabaysaa waad isku dayaysaa. صح هذا هو اسكو داي Waayahay su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sirhayihii ama xogahayihii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. ان خالد بن مريد عمر May sax isku daygu waa saddex Isku day. jeer way isku daygu waa 3 jeer mid wada garan weyda isku dayga كمية laba ku الله haray isku daygu waa 3 jeer qof isku dayaya mid wada garan weyda waxa tiri waa Khalid bin Walid baa tiri صح صدح مرة اسكو داي waka كرتوما اللهم waka اي 3 mar baa isku dayi kartaa 2 mar marka 2 mar baa ku harsan. بلال بن الخطاب May عمر waan ku faa'iideynaya ايش waan ku sheegaya فايدة ايش sirhayihii ama xogahayihii Nabiga magaciisu waa Xudayfa bin Yamaan. زيف بن عمال Su'aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa asxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badr. حمزة May ابراهيم نقول ابراهيم may هلا ايه هرتسوما يعقوب may Yacquub anigu waan ku faa'iideeyay Soomaa. ها Asxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badr waxaa la oran jiray asxaabiga Abu Ubayda Caamir bin Jaraax. اوكي ابو عبيد بن جراح waayahay su'aashii saddexaad ayaynu u gudbaynaa. Su'aasha saddexaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaca caadiga ah ee asxaabiga Abu Hurayra.
أصحابك أبو هريرة مجلس عادي قاشك أبو هريرة رسولك وبحيه صلى الله عليه وسلم مركا مجلس عادي قال الدنيا أبو هريرة أبو هريرة وأنا أصحابك حديثة وقبض رسولك سوري صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صاحب قرما إيش وهي هاي مجلس وحلا هذا عبد الرحمن بن الصخر عبد الرحمن بن الصقر aad baad mahadsantahay saaxiib saddex su'aalood ku weydiiyey sida wanaagsan aad iskugu dayday aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiib sharaf iyo karaamo هذا ما صاحب aad baad mahadsantahay qofka xiga ayaan u gudbaynaa asalaamu calaykum وعليكم السلام رمضان مبارك soo dhawow walaal qaali waxaad si leef ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee ramadaanta waxaa rabaa ninkaas dadka meesha madow ku jiraan axmade السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك waxaad si leefa ugu jirtaan barnaamijkii su'aalaha ee ramadaanta marka saddex su'aalood baan idin weydiinayaa saddexdaas su'aalood haddaad garataan waa caadi haddaad isku daydaan waa si wanaagsan marka saddexdaas su'aalood inaan idin weydiiyo diyaar mootiin aad baad u mahadsantihiin su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa geedka jahanabo bartankeeda ka baxa magaciisa ee qur-aankana lagu sheegay waxaad sheegtaa geedka jahanabo bartankiisa ka baxa qur-aankana waa lagu sheegay magaciisa sheega geedka تينك ما يشوف ما يتين ما يوكاي ما مسلسل دين تكون تقانا تودي عليك يا أنا قرنا يجيت كاس تقوم بلا waad garat aad baad mahadsan ها waad garat aad iyo aad baad mahadsan su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa meydka xalaasha meydka xalaasha waa haye kalluunka iyo aduu xibada ku jira haye kalluunka waad ka sheegtay midka meyd kale oo xalaal oo beriga ayaa jira beriga meyd kale oo xalaal ah bal ma garanaysaa ma garanaysid oo idin faa'iideeya mise ma meyd xibada noo waa ayaxa weeye ay oo ayaxa sax aad baad u mahadsan tahay su-aasha waad garatay su-aashii saddexaad ayaynu u gudbaynaa su-aasha saddexaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa dhiigga xalaasha dhiigga xalaasha waa dhiigga waa qofka qof dila may soma dhiig xalaala oo la cunaya dhiig dhiig xalaala haddaan kuu fududeeyo haa waa la cunaya dhiigga xalaasha waxa weeye beerka haye waan kusii jirciyey beerka iyo beerka iyo wadnaha soma beerka waad garatay may wadnuhu kuma jiro haye beerka haye sax oo wallahi taa kale ma garanay haye taa kale oo idin faa'iideynaya loo faa'iideey ta kale waxa weeye waa beeryarada marka su-aasha waad garateen aad iyo aad baad mahadsantihiin saaxib aad iyo aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan aad su-aalaha uga jawaabteen aad iyo aad baad mahadsantihiin wax in la kala faa'iideysto waa muhiim sharaf iyo karaamo imika ay waxaadna aanu kaa faa'iidnay ayaxaas inuu meydka xalaasha iyo beeryarada iyo beeryaradaas iyo beerku inay dhiigga xalaasha yihiin aad baad mahadsantihiin walaal aad baad mahadsantihiin sharaf iyo karaamo qofka xigaan u gudbaynaa aad baad mahadsantihiin السلام عليكم walaal qaali ramadaan mubaarak waxaad si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee ramadaanta marka saddex su'aalood baan ku weydiinayaa oo diini ah marka saddex su'aalood haddaad ka jawaabto waa si wanaagsan haddaad isku daydana waa si wanaagsan marka saddex su'aalood inaan ku weydiiyo diyaar mood waayahay su-aasha koobaad waxay ku leedahay kumuu ahaa ninkii dakray nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkii uxud ya codka kor yaro dalcola
haddaad isku daydo waa si wanaagsan isku day ceeb maaha ya fircoon may fircoon dila fircoon waqtigii rasuulka muu soo gaarin be ninkii rasuulka dakray baa lagu yiri dagaalkii Uxud waayahay waan kuu faa'iideynayaa ninkii dagaalkii Uxud nabiga dakray waxaa la oran jiray ibnu qima waayahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa labadii gabdhood ee Ilaahay u waxyooday ya codka yara nooleysay walaal qaali walaal Caaisha may hay Khadiija may qabrusaa mataqaanaa ya gabadhaas waxay tantay oo way baxdayba Allahu akbar salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo وبركاته. dhowo walaal qaali Ramadaan mubaarak waxaad si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta markaa 3 su'aalood baan ku weydiinaya oo diini ah haddaad isku daydo si wanaagsan haddaad ka jawaabtana si wanaagsan markaa 3 su'aalood baan ku weydiiyo diyaar mood صاحب ما يديروني. waayo amaasanta qofka xigan u gudbayna aad baan mahadsantahay salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhowo walaal qaali alxamdulilah baan fiicanahay soo dhowow Ramadaan mubaarak waxaad si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta markaa 3 su'aalood aan ku weydiiyo oo diini ah diyaar miyaad u tahay 3 su'aalood haddaad garato si wanaagsan haddaad isku daydana waa si wanaagsan markaa 3 su'aalood ma ku weydiiyo صح ودي وديني لكن محلو قاعد سوى فايدة ويه يا صح أنا قلت ديتيني دي سو ملعب بالو قاعدين سوى والسؤال صحيح فري ويا عدد كجوابت عدد قرن ويدا لوجو فايدين هذا فايدة كوتاي عديات كجوابتنا عدد كقداونا يا مقراصة كفايدة صح وي ما كسرت وصدح كليا ويها ان سؤال شو كبار يحكوا لي هذا هاي waxaad sheegtaa geedka jahanabo bartankeeda ka baxa ee quraankana lagu sheegay geedka magaciisa wallahi waqti ma jiro mise aywa saddex jeer buu qofku isku dayaya ni horta life baan ku jira ka wada ni qaar ni ilaahay ka cabsado waxa loo soo qoro ni dadku diinta ku ciyaarayaan wallahi waxay leeyihiin inaan wax wallahi هلي صعب midba wuxuu ku leeyahay wallahi de saxaabina ku ciyaarna ma buuri buu ku leeyahay buuri waa ka baxay الله يفكر كذا كيف شرط صاحب مع تيك توك تبع دتكاس ها تيك توك وي تيك توك هم سوى كيكتي اي والله تيك توك وي استغفر الله العظيم اوكي سؤال شلبات صاحب تاو وان سؤال شلبات واي هي ان وانكو فايدين يا صاحب جيت نارت يا جيت نارت ka baxa tiri geedka jahanabo bartankeeda ka baxa ee quraankana lagu sheegay marka dad garan weydo ku faa'iideynaya waxa la dhahaa saquul baa leeyahay okay saquul walagu soo sheegay saashaas waa kansar weeye صح ما واحد aan garan waan isku dayna wixii caadi way asxaabta la kaashanaysa markaas ma way si wanaagsan soo diyaarmati way si wanaagsan waa saquum waad garateen aad baad mahadsantihiin su'aasha xigta قاربة سقوم وي سقوم سجرت سقوم اوكي صح ان سؤال حigta ayaan ku weydiinayaa su'aasha xigta waxay ku leedahay waxaad sheegtaa meydka xalaasha su'aashaas diini mise xalaal caadi waa su'aal de adigu meydka xalaasha weeye wax dadku cunaan tan ku jira xiyo meydka xalaasha oo dadku cunaan meyda weeye okay kalluunka way kalluunka asxaabtaadu way garteen waa kalluunka haye iyo okay hilib marka ma hilib oo dhan baa kalluunka haye kalluunka iyo beerka ayaxa way garteen
waxa ku daawanaya dad aqoon-yahan ku daawanaya ya sababtoo ah waxa jira dad badan oo su'aasha aan ku weydiiyaan garanayno hadda ka faa'iideystay ba jira ay xanuun garanaya ay inuu xalaal iyo la cunayo xawaan waayahay su'aasha kale waxay ku leedahay su'aashii saddexaad weeye waxay ku leedahay kumuu ahaa ninkii dakhray nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud magiciisu wuxuu ahaa waan garanayaa taas ninkii nabiga dakhray dagaalkii Uhud dagaalkii Uhud nabiga adeerkii ninkii dakhray duniya wuxuu ahaa magiciisa Allahu musta'aan kamun wallahi magiciisa ma garanay hadda way dawsanay waayahay waan ku faa'iideynaya bas iyaga soo sheegay bas laakiin ma ayagu laftirkooda meel bi aadayaan way raagayaan haya aqliba ma dad badan way ku daawanayaan I think wila raagayaan ma filayas no faa'iido waayahay ninkii nabiga dakhray sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud wuxuu ahaa ibnu qima ayaa la dhigi jiray ibnu qima wallahi nuure waxbaad baray yaa sax gabadhaas baa soo qortay hadda gabadh baa soo qortay GPT-ga ku soo egta laga yaabaa كل سوريان لكن ابن قيمة النبي صلى الله عليه وسلم وحميس كوها يعني مركوري سنيك عشان قالوا هنيك هذا خير النبي صلى الله عليه وسلم هنيك ابن قيمة دجالكي يعني دجالكي دجالكو marka saddexdii su'aalo saaxiib si wanaagsan baad uga jawaabteen waad isugu daydeen marka adiga asxaabtaada aad iyo aad baad u mahadsantii saaxiib sharaf iyo karaamo wax la adigu la fiican ma ku jirtay miya ya saaxiib adigu live ku jirtay anu live ku jiraa recording kana uu socdaa saaxiib marka ma kick mise halkii kaga saaxiib halkan iyo xagga Facebook page-ka maxamed wardo official bay ku qoran maxamed wardo official bay ku qoran Facebook-ka iyo YouTube-ka iyo TikTok-ka saaxiib marka saaxiib lacag ka qaad beenayaan okay sax marka saaxiib aad baad u mahadsantahay marka هي adiga dadka xigaan ugu gudbaynaa marka aad iyo aad baad mahadsantahay adiga asxaabtaada sharaf iyo karaamo aad baad mahadsantahay saaxiib aad baad mahadsantahay السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام walaal qaali waxaad si leefa ugu jirtaan barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta marka saddex su'aalood oo diini ah inaan idin weydiiyo diyaar miyaad u tihiin haddaad garataan oo si wanaagsan haddaad isku daydaan oo si wanaagsan diyaar u nahra waayahay su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee adduunkan dushiisa qof ku dila su'aal jilicsan qofkii ugu horeeyey ee adduunkan dushiisa qof ku dila haddaad isku daydaan oo si wanaagsan haddaad garan weydaan ana idin faa'iidinayo idin sheegayo marka ma idin faa'iideeyo ma idin sheega alle ya alle hadwa ilahi qofkii ugu horeeyay baa lagu qofkii qof baa laga hadlaya qofkii ugu horeeyay adduunka dushiisa qof ku dila qofkii ugu horeeyay qof baa laga hadlaya noo sheeg Khalid bin Walid may idin sheega noo sheeg waa qaabiil markuu dilay walaalkii haabiil nabi aadan calayhi salaam nabadiisa marka qaabiil markuu dilay walaalkii haabiil weeye qaabiil baa dilay walaalkii haabiil waa dilkii ugu horeeyay adduunka dhacay marka su-aasha xigtaa waxaad sheegtaa asxaabigii eedaanka ku riyooday asxaabigii eedaanka ku riyooday haddaad gara weydaan oo idin faa'iideynaya isku day ku ceeb maaha Nabi Yaqub may asxaabigii eedaanka ku riyooday idin faa'iideeya Umar bin Khattab
may maaha ايه نفايدي asxaabigii eedaanka ku riyooday waxaa la odhan jiray cabdilaahi binu sayd اوكي waayahay su-aashii ugu dambeysay su-aashan kale waxay ku leedahay waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahanabo bartankeeda ee qur-aankana lagu sheegay geedka ka baxa jahanabo bartankeeda ee qur-aankana lagu sheegay عنب jahanabo bartankeedu ka baxa ma idiin faa'iideeyaan ها geedka magaciisa waxaa la yidhaahdaa saquum aad baad mahadsantahay walaal qaali sida wanaagsan aad isugu daydeen su-aalahan idin weydiiyey aad iyo aad baad mahadsantahay iyo sharaf iyo karaamo qofka xigaan u gudbinaa aad baad mahadsan السلام عليكم وعليكم السلام رمضان مبارك walaal qaali soo dhawow waxaa si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su-aalaha ee rabadaanta markaa 3 su-aalood baan ku weydiinayaa 3daas su-aalood haddii aad ka jawaabto si wanaagsan haddaad isku daydana waa si wanaagsan markaa 3daas su-aalood inaan ku weydiiyo diyaar mooto yaay aad baad mahadsan su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaad su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahanaba bartankeeda su-aashaas su-aal adag weeye yasa jahanaba bartankeeda maa jannada ka dhigto jannadan garanaya ka dhex baxaya qur-aankana waa lagu sheegay haddaad garan weydana waa caadi waan kuu faa'iideynaya isku dayguna waa 3 jeer weeye 3 jeer buu qofku isku dayay faa'iidee garan waa miyaa ka baxa geedka oo geed xaasidka yuhuudda la dhaho miya aroon may waxa weeye waa geed lagu sheegay qur-aanka oo jahanaba bartankeeda ka baxa adigu dii inta aqaani weydiin maysid jannada i weydiiyey geed gobaa ka baxa waa aqaana cilmiyadeeda waa haystaa waa kuu faa'iideeya markaa kuu faa'iideysamaa isku daygu ceeb maaha su-aasha labaad ka dhig horta hadhow i faa'iidey su-aasha labaadkee waayahay su-aasha baan ku faa'iideeyey imikan tan imika maya hadhow gadaal iga faa'iidey horta talabaadii weydiiyey waayahay su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa meydka xalaasha meydka xalaasha ah ceel baa igu ridaysaa dee meyd xaaraana miyaa jira meyd xalaala jira haa wax ka wadaa oo wax ka wadaa xayawaan miyaa ka wadaa mise bini aadan dee waxa weeye waa xayawaan weeye xayawaan ku jilciyey be meydka xalaasha waa wax meyd xalaala laakiin haddaan kuu jilciyo waad fahmaysa arda meyd oo dhan ba xalaalayso kala qalo oo meydka laga waa meyd xalaala weeye oo la cuno oo diintu banaysay dee oo xalaala diinta islaamku banaysay okay intaan la qalin ka hor buu dhintay ya intaan la qalin ka hor buu dhintay xayawaanku dee meydka xalaasha sheeg baa lagu wuxuu yahay sheeg baa lagu horta dhegeysadii horta meydku horta inaa misle faxano weeye xayawaanku markuu dhinto isagoo aan la qalin markaasuu meyd yahay haddii la qalo meyd maaha mogtahay marka waxaad leedahay intaan la qalin buu meyd yahay iye intaan la qalin buu meyd taasi yahay magaciisa lagaa doonaya xayawaanka xayawaanka magaciisa laga doonayaa ceel baa rabtaa inaa igu ridda riyaha baan kuu faa'iideeyaa saa waa haa tii hore iyo tanba baan kuu faa'iideeyaa tii koobaad iyo tan labaad i faa'iida labadooba haa tii koobaad waxay ahayd waxaad sheegtaa geedka jahanabo bartankeeda ka baxa waxaa la yidhaahdaa saquum sajaratu saquum oo qur-aanka lagu sheegay saquum oo qur-aanka lagu sheegay su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa meydka xalaasha marka meydka xalaasha waxa weeye kalluunka iyo ayaxa kalluunka ayax kuwa kale waa xaaraam ya yaa wixii diintu inoo banaysuun baa xalaala unde
kalluunka bay ilaahay diintu inoo ها banaysay دي كلونكي هدي بدي لغا سو سارو waa kan duwamid badi hadii laga soo saaro marka hadana wax marka xalaal wala su-aasha ku weydiiyo waxaa ii jil hadana wax hadee waa fahmaysaa marka hadaan ku jilciye qofkii waxa la doonayaa su'aashii magaraas in loo dhigo su-aasha saddexaad baa ii dhimanayo Ma qofka waxaa soo qaada masla doonaya qofkii inuu maskaxda tuujiyo su'aashii uu garto su'aasha ku xigta tii ugu dambeysay tii saddexaad okay fudaydii waayahay jacayl ka sii su'aashii saddexaad ayaan ku weydiinayaa yaa ibaash su-aashii saddexaad ayaan ku weydiinayaa su-aasha saddexaad waxay ku leedahay kumuu ahaa ninkii dakhray nebiga sallallahu calayhi wasalam dagaalkii uxid dagaalkii uxid ninkii nebiga dakhray sallallahu calayhi wasalam dagaalkii uxud nebiga ninkii dakhray saxaabadan ku daqwaday su-aasha oo laabeen maaha isku daydan si wanaagsan dad garan weydo waan ku faa'iideyn may saddex su'aalood kale igu darniyo saddex su'aalood waayay waan kugu darayaa midda kale qaar waxa jilicsan oo lagu weydiinaya midda kale easy adeeg kasi adeeg baa saas loo galaa adeeg ka may bilaabaysa iminka de qaar iska meel dhexaadan kuu soo ku weydiiye laakiin qaar adag maaha laakiin iminkan qaar jilicsan ku weydiinaya insha allah marka hadda su-aasha iminka haddaan su-aasha kuu faa'iideeyo su-aasha waxay ku leedahay kumuu ahaa ninkii dakhray nebiga sallallahu calayhi wasalam dagaalkii uxid ninkaa magaciisa waxaa la odhan jiray ibnu qima ibnu qima nin khayraysana maaha kaasoo kale su-aal jilicsan ayaan kuugu horeysiinayaa midda kale xagga taariikhda iyo juqraafiga gal taariikhaha waa dareemaya taariikha adag buu yeelaa deme waa rabadaane su-aalaha diiniga maaragta aynu sii deyninade marka rabadaan telefishinkee kugu daaran caawa ya yahay kusoo bismillaah su-aal jilicsan baan ku weydiinayaa su-aal jilicsan ayaan ku weydiinayaa su-aashan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa qofka ugu horeeya ee jannada horgelaya maalinta yawm alqiyaama qofka ugu horeeya jannada ugu horgelaya ugu horeeya jannada gelaya qofbaa ugu horeeya oo ugu horgelayaba jannada nabi ciise miyaa mise nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waad garataa nabi maxamed weeye sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam waad garataa ay fadhida alfu ku fadhida iskuuleynaya rageed dheh waayahay su-aal kaloo jilicsan ayaan ku weydiinayaa su-aashan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee adduunkan dushiisa qof ku dila adduunkan ilaahay abuurtay qofkii ugu horeeyey qof ku dila pressure baa isaarta waa garanayaa kaa magacii baa iga dhiban laakiin magaca waa inuu haddaan kuusii sheego nabi aadan calayhi salaam caruurtiisii bay ahaa yunus ya waa garanayaa taa magaciisii wuxuu ahaa waa igu wareegaya magaca ilaafna mahayn magacii waa igu wareegaya oday waa igu wareegaya magacyada labadii magac labadiis dilay ninki isagaa aasay xataa moogtahay waad haysaa magacyada kaa maqan magacyada magacyada kaa maqan waad haysaa wuxuu ahaa maxraf ka bilaabanaya sheeg horta mid markaan ku jilciyey qa buu ka bilaabaya qaabiil ya qaabiil buu ahaa soo ma waad garat waan ku jilciyey anaa kuu sheegay su-aashaas may de xarafka ugu horeeyay isku sheegitaan maayo intee qaa ka bilaabmada qamar baa ka bilaabmata xataa waayahay su-aashaas de waan ku jilciyey midda kale su-aashaas su-aasha xigtaan ku weydiinaya ku soco haddaa rabto taa dhexaad qaybna qaado dhibcaha waxaad sheegtaa asxaabigii eedaanka ku riyooday bilaal miya ye bilaal wey bilaal wey bilaal maahayn miya asxaabigii eedaanka ku riyooday bilaal baan moodayay hay bilaal maaha garan maayo taas kataa garan maayo waayahay asxaabigii eedaan ku riyooday magaciisa waxaa la odhan jiray cabdilaahi binu sayd
yaa la oran jiray cabdallah mise cabdillah marka si wanaagsan baad su'aalihii uga jawaabtay qaar ka mid ahna waad isku dayday waa ka qayb qaatay aad iyo aad baad laba mahadsantahay miyaan ka jawaabay saddex yaa sax ha wax la'aan baa waxaas dhaantaa yaa sax waad garatay qaarkood ha may intaasna intaan waa i faa'iidaysay odayaa mahadsan tahay adigaa mudan sida wanaagsan ee su'aalaha aad uga jawaabtay aad iskugu dayday aad baad ugu mahadsantahay sax sharaf iyo karaamo barnaamij live sidiisa buu ahaa Soomaaliya barnaamij mikrofonkaaga xataa waka aad baad mahadsantahay sax xagee lagala socdaa barnaamijka mararka qaar ka soo waka waxaa kala soconaysaa saaxiibeen Facebook page-keena Maxamed Wardi official ku qoran yahay Maxamed Wardi official baa ku qoran sidoo kale Facebook labaad baa jira oo dhacdooyinka hadda uu ku qoran yahay sidoo kale waxaa jira TikTok Maxamed Wardi official uu ku qoran yahay sidoo kale waxaa jira YouTube channel Maxamed Wardi official uu ku qoran yahay iyo YouTube kale dhacdooyinka hadda ay ku qoran tahay marka aad baad mahadsantahay saaxiib rafi karaamada barnaamijka ugu dambeeyay marka barnaamijka halkaas ku xidhanaa saaxiib qaar aad baad mahadsantahay taasi noo tahay aad iyo aad baad mahadsantahay sharaf iyo karaamo